xisbiga Kulmiye oo ah xisbi xaakimka talada dalka haya ayaa maanta Cududiisa Taageero ee uu ka haysto shacabka ku dhaqan degmada Hulul iyo deegaanka Laastomare ku soo bandhigay cududooda taageero iyadoo ay kala qayb galeen murashaxiinta kala warsame jaamaca oo u sharaxan golaha deegaanka degmada Ceel-Nimcoon lambarka codeyntiisuna uu yahay 209 iyo Axmed Maxamed Magan Sablaale oo isna lambarka codeyntiisuna uu yahay 201 isna u sharaxan golaha deegaanka degmada Ceel-Nimcoon kana sharaxan xisbi xaakimka Kulmiye ugu horeynna madashii la isugu yimid waxa taageerayaasha kala hadlay maamulka xisbiga Kulmiye maamulka degmada Hulul waxgarad haween iyo murashaxiin waxaan salaamayaa halkan taageerayaasha xisbiga Kulmiye ee u soo baxay maalintii koobaad ee xisbiga Kulmiye uu leeyahay oo ah munaasabadiisa koobaad ee loo dabaaldegayay ololaha anagoo ka soo digay rogonay xisbiga wadani gudoomiyaheedii baan ahayn degmada Hulul waayo waxa ka sharaxan golaha deegaanka oo ugu badan afar nin baa ka sharaxan xildhibaanka wanka Saalax Maxamed Diiriye oo ka sharaxan xisbi xaakimka wanka xildhibaanada oo baarlamaanka ina waa ka sharaxay ninkana waxaan u digaaragnay xisbiga Kulmiye u digaaragnay waana aragtaan artaamihii inaanu sidano markhaati madoon weeye ummadda u soo baxdayna waxaanu siinaynaa oo kula talinaynaa inay xisbiga Kulmiye iyo taageerayaashiisa ay xoojaan soo ma siino codka iyo ka hor anigu maalin qura ma gelin xisbi maxaafida waxa weeye maanta waxa weeye markaan daalay ee xiiqay ee kabiigaga dhamaadeen ee bacad lay taagay ee dan la'aan laga shaqeeyay dan la'aan waa ka shaqeyn kari waay waxa weeye maanta waxa weeye halkaa aan u soo digarogtay dan baan ugu soo digarogtay dawladdeena ayaynu taageersanahay Saalax Maxamed Diiriye afarta xildhibaanba waxaan leeyahay kuwaasaynu ugu ridaynaa sidaasaynu isku ognahay soo uguma ridno ballankeenu waa sidaa weeye sidaa saaka waxaan ku yeedhi adeerkay Saalaxow saaka waxaan ku yeedhi salaaniga baaqatiya sawdkaniga gudoon haddaan baaqayay beesha reer tolkeen haddaan baaqayay beesha reer tolkeen dhammaan Axmed Faarax iyo dhuuxaynu nahay waxaa lagula doonayaa doorkan inaad heshaa wakiilada noo tagtaa waajibkana guda maalan ha noolaato xisbiga Kulmiye ha noolaado halkan waa aragtaan taageerayaashii xisbiga Kulmiye waa aragtaan magaaladii way dhaqaaqday miyiga ka daran waxa weeye inta magaalada ku jirta ee ama waayeelka ama dhalinyarada ee soo kici kar weeyday baa ugu daran mucaariga maxaafid dadku waa kaliya waa aragtaan maanta goobta iyo dadweynuhu sidii isugu yimid ummaddu sidii isugu soo baxay ninka halka waxa soo madi u taagan tahay ee waxa soo dadii bacadka u taagan yihiin inuu guul daraysto inuu golaha wakiilada ka maqnaado miyaa laga yaabaa kana xoo nafta waa astaanta Saalax waa la wada garanayaa nin Laastomare aad baa wanaagsantiin oo u mahadsantiin sida ugu tacabteen xisbiga maanta talada haya ee xisbi xaakimka sida u xoojiseen iyo sida ugu dareerteen iyo sida aydan u kala hadhin aad haddaan baarlamaanka iyo buugga laga akhriin website-ka lagu baahin baashay kale yihiin baraha internet-ka iyo buugga laga akhriin warbeerku degi maayo barayaashu way ugu ceeb reer Laastomare horta barba ugu taalin xisbiga Kulmiye barba ugu taalin waa inoo maalinta 31 May iyo codka reer Laastomare haddaan nahay raggaas hadday noo sharaxan waa inaynu soo saaro oo codka siino oo ku dadaalno ma garata ugu dambeynna halkaasi waxa ka hadlay labada murashaxa ee kala ah warsame jaamaca oo sharaxan golaha deegaanka degmada Ceel-Nimcoon iyo Axmed Maxamed Magan oo isna u sharaxan golaha deegaanka degmada Ceel-Nimcoon waan idin sheegayaa taageerayaashayada sharafta leh waxaan idin sheegayaa ninka xildhibaanka ee ka soo baxa golaha ka soo baxa xisbiga mucaaradka
iyo ninka xildhibaanka ee ka dhaca ama golo degaan ha ahaado ama golo baarlamaan ha ahaadee ka dhaca xisbiga xaakimka waxa awood badan oo faa'iido badan ninka dhaca ee xisbil xaakimka sharaxnaa baa awood badan iska daa mid soo baxa fariin horta waxaan u dirayaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waxaan leenahay shaqaalahaaga iyo cuqaashaada iyo salaadiintaada aad kaarka siisan naga qabso waxa laga dhaqaaqi layahay waxa weeyaan shaqaalihii dawladda ee ubadkooda dawladdu bariiska siinaysay ayaa laga dhaqaaqi layahay oo xisbil xaakimku ka dhaqaaqi layahay dee wasaaradu hay isu fiirsadaan hadday u shaqaynayaan oo u adeegayaan annagu waxaan nahay horta goli deegaanka waxaana hogaaminaya Saalax Maxamed Diiriye ayaana hogaaminaya marka hore qof kasta oo codkana siinayo qof kasta oo codka aniga siinayo ka deegaanka siinayo Saalax baad siinaysaa waxa weeye taageerada aynu halka ku muujinayno ee golaha deegaanka siinaysaan farta waxa isku xijinaysaan gudoomiyaha baarlamaanka ee nawada